xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya bahda waxbarashada dalka ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin bedelanayeen ku dhawaad 550 arday oo dhameystay heerka waxbarashada dugsiga sare. xafladan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa waalidiin iyo marti sharaf kala duwan. Ibrahim Aadan Ibrahim oo kamid ah guulaystayaasha maanta iyo Saacadiya Cali Xaaji oo ku hadlaysay ardaydii hore ee dugsiga adalti ayaa uga mahad celiyay macallimiinta iyo waalidiinta doorka ay ka qaateen in halkan ay soo gaaraan. waxaan markoowaad iyo mar labaad aan hilmaami karin macallimiinteeda qiimaha badan marna ah saaxiibadii qaaliga ah ayagana waxaa leeyahay macallimiin run ahaantii maanta inaan animation soo istaago aan ka soo muuqdo adinka xajiina ku imaad waana mahadsantihiin dhammaan macallimiinteyda oo aan kala qaadaynin oo ku jiraan macallimiinta jaamacadda iyo macallimiinta iskuulka ardayda qalin jabinaysa ee dufcadda 15aad waa u hambalyeynaya maanta oo kale aniga ayaa u taagnaa inaan meeshan ka qalin jabiyo haddana adika ayaa idin hambalyeynaya. Xasan Cabdi Xaashi maamulaha guud ee adalti iyo gudoomiyaha jaamacadda Joogka Professor Cabdicasiis Caagan Cabdisamad ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wadaan waxbarashadooda si ay uga gaaraan himilada waxbarasho ee mustaqbalkooda. waxaan idinku dhiirigelinayaa sidaad waxbarashada ugu dadaasheen inaad jaamacadaha iyo ilaa heer master ilaa heer PhD aad ku dadaashaan. sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa bahda jaamacadaha inay garab istaagaan dufcadan qalin jabisay. waalidiinta ardaydan aad u quruxda badan ee runtii ku soo baraarujiyay waxbarashada inay maanta heerkan soo gaaraan oo ku dhiirigelinayay in ay asaagood wax la qaybsadaan ayagana waxaan rabaa inaan hambalyadaas aad u quruxda badan hawada u soo mariyo. xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa ku ammaanay juhdiga macallimiinta Soomaaliyeed ee gelinayaan waxbarashada dalka isla markaana wuxuu sheegay in heerka waxbarashada dalka laga dareemayo sare u kac. tan kale maanta waxaa waa maalintii waxbarashada dadku waaweyn waay ani waxaan dhihi lahaa hal la dhaho meesha adalti aad dhahaysaan af Soomaaliga ha lagu sheego waxa waaye dadku waaweyn ha la dhaho sideedana maanta waxay ka bilowdo 3 September maalinta waxbarashada dadku waaweyn waa jaamacadda keliya 15 dafcadood ay ka baxdo waagi siyaad barre waxaa jiray dugsiyo dadku waaweyn markaan waa mudan tahay in la xuso maalintaas oo ay joogkay ay u noqotay hormuud. Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.